qaar ka mid ah sariflayaasha magaalada Hargeysa ayaa maanta soo dhaweyn ugu sameeyay gudoomiyaha guud ee sariflayaasha Somaliland ee wadajir Barkhad Axmed Coofiye kaasoo xaalad caafimaad muddooyinkii ugu dambeeyay ugu maqnaa dalka dibadiisa waxaana kaga hortageen garoonka diyaaraduhu ka hadeen kana soo degaan ee Cigaal International Airport waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah sariflayaasha Somaliland ee soo dhaweynta u sameeyay gudoomiyaha guud ee sariflayaasha wadajir ee Somaliland waxaana ay ka hadleen ahmiyadda uu soo dhaweyntan u leedahay iyo sidoo kale xaaladaha muddooyinkii ugu dambeeyay ugu maqnaa dalka Hindiya waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiyaha guud ee ururka wadajir gudoomiye Barkhad Axmed Coofiye oo muddo ku maqnaa dalka dibadiisa waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow dalkaaga hooyo ku soo dhawow ururkaagii oo ku sugayay oo ku heelanaa imaashaha qaw heelanaa oo ku soo dhaweynaa gudoomiye aad iyo aad baan ku salaameynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba alxamdulillaah rabbil caalamiin nabad qab ilaahay noo ku keenay maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa magaalada Hargeysa gaar ahaan Cigaal International Airport gudoomiyaha guud ee sariflayaasha Somaliland mudane Barkhad Axmed Coofiye oo safar shaqo iyo mid caafimaad isugu jiray kaga yimid wadanka Hindiya dhamaantayo waxaan ku soo dhaweynaynaa si kal furan waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaaga ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee sariflayaasha Somaliland ee wadajir Barkhad Axmed Coofiye waxaanu ka hadlay xaaladda sixir barar ee ka jirta dalka waxaanu sheegay in dhankooda ay la tacaaleen inaanay dalka ka kicin lacagta ama uu sixir bararka aanu qayb ka noqon sarifka lacagaha la isku bedelo Somaliland wuxuu u taagan yahay waa astaanta qaranka iyo ilaalinta shilinka Somaliland waad ogtiin caalamka oo waxa ka dhacay sixir barar badan iyo dhib badan baa ka dhacday laakiin anagu alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh shilinkeeni Somaliland oo mar walba taagan halkiisii anaguna aan culays iyo jundi badan gelinay dhammaan gobolada Somaliland oo dhan ay wada heleen ururka sariflayaasha Somaliland sida u ilaalin lahaayeen shilinka Somaliland si dadka danyarta ee ay raashiku ku kacay haduu shilinka Somaliland uu ku kaco waxay noqon lahayd arin iyaduna mucjisa laakiin anagu waxaan culays ka saarnaa maadaama ururka sariflayaasha Somaliland sidii aan u ilaalin lahayn shilinka Somaliland inaan u noqon mid dhaqdhaqaaqa oo noqdo sida dararka aynu jaarka nahay caalamka inuu la jaan qaado oo ka warhaynaa dalalka aynu jaarka nahay waxa isugu darsamay sixir barar oo lacagtiya iyo alaabtiyo ku kacday inagu laakiin waxaan dhinac baynu ka fayownaho shilinkeeni halkii buu fadhiyaa dhammaan mar walba waxaan u mahad celinayaa ilaahay baan u mahad celinayaa oo mar walba awoodda iska leh in ururka sariflayaasha Somaliland meel kasta oo joogaana waan u mahad celinayaa jundiga iyo sida ay dadaalka badan ay sameeyeen waxaan leeyahay Axmed Khalid telefishinka Real Hargeysa